waxaa maalintii 11aad wadanka Jamhuuriyadda Djibouti iyo gobolada dalka gudihiisa ka socda oo la doorashada madaxtinimada madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ahna musharaxa xisbiyada Bohowey marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan UNB oo wada ololihiisa doorashada ayaa maanta isku soo bax balaaran ka sameeyay gobolka Cali Sabiix ee magaalada Cali Sabiix boqolaal qof ayaa soo buux dhaafiyay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala gobolka Cali Sabiix علي صبيحو هذا الرير علي صبيحو waxaa la inagu ogaa hadaan reer علي صبيحnaan meel walba inaan u horeyno waa la inagu ogyahay orad haday noqoto waan u horeynaa kubad haday noqoto waan u horeynaa hees haday noqoto waan u horeynaa madaxweynaha foodkiisa haday noqotona waan u horeynaa maanta waxaan isku diyaarinaynaa bisha 8deeda haddaan reer Cali Sabiixnahay boqolkiiba boqol inaan foodka keeno madaxweynaheena Cali Sabiix ka dhigay xundurtii horumarka IOJ walaaleel walmaasatiin waxaan nileeyahay shaqaa soo qabanay shaqada goorma dhammaynaynaa goorma dhammaynaynaa shaqada bisha 8deeda Cali Sabiix inay broomiye noqoto insha Allah waxaa halkaasi khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ana musharaxa xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada UNB Ismaaciil Cumar Geele hadaladiisina waxaa ka mid ah sidan waxaan wadnaay waa siyaasad waxa aad igu soo jiideelina waa iyadii waxa aad ii tiraahdeen joog waa taas weeyaan taasina waxay leedahay shacbi iyo madaxdiiba ay israacisan shacbi iyo hoggaankiisa ay israacisan kalsooni bay ku shaqaysan kalsoonida hadii la waayo hoggaan ma jiray hoggaan hadii la waayo horumar ma jiray hoggaan xun hadii la helo waxa dhacaya maamul xun hoggaan xun wuxuu leeyahay dib u dhac buu leeyahay wuxuu leeyahay qalalaasuu leeyahay wuxuu leeyahay ammaan darruu leeyahay waxa uu leeyahay qas iyo deganaansho la'aan buu leeyahay marka ilaahay baan ka hoos galnay ilaahay baan ka barinay wadankeenu inuu wadada nabadda midnimada horumarka isjacaylka shacbiga dalka inta uu leeyahay nin waliba meesha uu doono uu degi karo nin waliba meesha uu doono uu mari karo nin waliba nabad aqalkiisa ku seexan karo waxaan dadaalkeena ugu horeeyay ballankeenu waa ahayd taase in aan waxaan u maleynaynaa dadkeena sida ay dhammaantood inta aan soo marnay raqbadaas baa socota maantana waxaa leeyahay biladii kampanyigani ama ololahani arma Cali Sabiix baa qaadaysaan leeyahay masaajidka وانا ملينا قلبي جاي من ربنا يا لكن waxaan leeyahay inaad qaadaysiin baan maleynaya sida aad u timaadeen sida aad noo soo dhaweyseen sida aad u xamuuratiin sida aad isleedihiin waan garanayaa in guushana aad ku noqon doontaan waan garanayaa waan idinku talagalaynaa idinkuna waad nagu talagalaysaan xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UNB ayaa safaradii ay gobolada ku tagayeen oo ay ka wadeen olaha doorashada wadanka Jamhuuriyadda Djibouti ka socota waxay ku soo gabagabeeyeen gobolka Cali Sabiix ee magaalada Cali Sabiix Maxamuud Casmaan Bulxaan telefishinka caalamiga Universal Cali Sabiix Djibouti